dhammaan asxaabta la socota janalka qaraax tube waxaad ku soo dhawaataan qaybta afaraad warbixinta cinwaankeeda uu yahay ma ogtahay in mashruucyo kale oo lacag lagu helo lagu fuliyo garoomada kubadda cagta. qaybtan waxaan kaga hadlaynaa xuquuqda magacyada ku xardhan gudaha garoonka. waxaa dhacda marka aad daawanayso kubadda cagta inaad ku aragto magacyo badan oo ku xardhan gudaha boorarka ku yaala garoonka. taas waxay la micno tahay in shirkad walba oo ku xardhan magaceeda gudaha garoonka ay iibsatay. Arsenal waa kooxda ugu badan ee dakhli ama lacag ka samaysa magacyada boorarka lagu xardho. sidaas darteeda waxa ay qayb ka tahay mashruucyada gaarka ah ee aan ka mid ahayn kubadda cagta waxay qayb ka tahay mashruucyada gaarka ah ee uu lacag ku shaqeeyo gudaha garoonka. tusaale oo kale 2004 kooxda kubadda cagta Arsenal iyo shirkadda Emirates Ireland ayaa wada galay heshiis xayeysiin ah. Arsenal ayaa 100 milyan ku heshay heshiiskaas ilaa iyo haddana waa ay kula jirtaa. lacagtaas marka si loo fiiriyo kooxda kubadda cagta Arsenal waxa ay ku faa'iiday lacag aysan faa'iidin 15 sano ka hor intaysan shirkadda xayeysiin la sameeynin lacag u soo xaroota. ku dhawaad 6.6 milyan ay soo saari jireen sanad walba intaysan wada shaqeyn la bilaabin shirkadda Emirates Ireland oo ilaa hadda ay la shaqeeyaan. dabcan kubadda cagta kaliya ma ahan sports, waxaa kaloo lagu sameeyaa heshiisyo. 2013 Dallas Cowboys ayaa aqbalay inay heshiis la galaan AT&T si heshiiskaas loogu xayeysiiyo garoonka Stadium of Ireland. marka la fiiriyo 400 milyan ay lacagtaas ku faa'iideen. shirkadda moobilada ama taleefanada sidoo kale waxa ay aqbashay in heshiiska garoonka uu noqdo mid 20 sano socda, taas oo ka dhigan in 10 sano ay faa'iideen in ka badan lacagtii ay faa'iideen inta ay kooxdaasi dhisnayd. waana wax ka badan lacagaha ay shaqeeyaan marka ciyaartooyda ay daawanayaan kubadda cagta. waana in ka badan lacagaha ay shaqeeyaan marka ay socdaan ciyaaro toos ah. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan, waan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga. sidoo kale waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe dhahdo, like-na aad saarto janalkeena una sheer garay asxaabtaada.